wiil yar oo Faransiis ah oo lagu magacaabo Jérôme Ja oo malaayiin taageerayaal ah ku leh baraha social media oo ay ugu horeysay YouTube, Vine iyo Twitter ayaa waxa uu soo bandhigay fikir cajiib ah taasoo uu ugu gurmanayo shacabka Soomaaliyeed ee abaartu ku habsatay. Jérôme waxa uu aad uga carooday in sanadkan aynu ku jirno ay dad gaajo iyo biyo la'aan u dhintaan, waxaana uu sameeyay sanduuq lagu caawinayo Soomaaliya oo uu ugu magac daray Love Army for Somalia. waxaana sanduuqaasi uu ka furay barta gofundme.com. saacado yar gudaheed ayaa waxaa dadka isticmaala social media ay isu gudbiyeen oo ay sheergareeyeen hadalka wiilkan yar iyo saaxiibadiisa ay qeyladhaanta iyo gurmadka ugu raadinayaan shacabka Soomaaliyeed, iyadoo saacado yar gudaheedna ay dadku soo ururiyeen kaalmo gaaraysa $800,000. qofba tabartii ayuu ku kaalmaynayaa Soomaaliya, waxaase jiraan dad ajnabi ah oo sanduuqan ku biiriyay lacag gaaraysa $25,000 sida ciyaaryahan Colin Kaepernick ee u dhashay Mareykanka ee dheela ciyaarta American Football. Colin ayaa isna dhinaciisa ka wada inuu soo bandhigo muuqaallo uu ku kicinayo dadka si ay gacan bani'aadamnimo ugu fidiyaan Soomaaliya. arrinta kale ee lagu farxo ayaa waxay tahay in dhalinyaro kale oo Yurub iyo caalamka kala joogta ay baahiyeen fiidiyogan iyagoo codsaday in kaalmo iyo gargaar degdeg ah lala gaaro shacabka Soomaaliyeed, waxaana ay ku gudbinayeen luqado kala duwan. C'est incroyable, alors bravo à tout le monde, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que maintenant il faut qu'on remplisse cet avion. Et il faut un certain type de nourriture à amener là-bas. Il y a des associations sur place qui nous ont dit la nourriture qu'il faut, c'est du riz, c'est de la farine, c'est du sucre, c'est des biscuits spéciaux. Voilà, comprenez que c'est des gens qui n'ont pas mangé. Il y a des personnes qui sont vraiment en état de malnutrition extrême et certains types de nourriture pourrait les tuer. Alors, il y a cette page GoFundMe que vous pouvez partager partout et surtout vous pouvez contribuer. Si vous êtes jeune, pourquoi pas demain midi ne pas manger un kebab, et à la place mettre 5 € sur le fond. Si vous êtes un peu moins jeune, que vous êtes des parents, si vous, des fois vous donnez à des associations, là c'est quelque chose d'unique, c'est que on va s'en occuper nous-mêmes. On le fait tous ensemble. Vous aurez en live, vous verrez ce qui se passe, vous verrez où l'argent va, vous verrez. On va être extrêmement transparent avec chaque dépense. Voilà. Bref, utilisons un hashtag encore une fois pour faire du bruit, pour que cette cagnotte sorte du lot, que les gens soient au courant. Alors le hashtag cette fois c'est Love Army for Somalia. Pourquoi Love Army? Parce que la manière dont on s'est réunis hier, c'était un mouvement. C'était un mouvement qui venait du cœur. Alors c'est une armée de l'amour, c'est une Love Army. Et du coup, Love Army for Somalia. Mettez ce hashtag partout. Parlez à tout le monde de cette levée de fonds. On a réussi la première étape d'avoir un avion. On n'a pas fini. Il faut les remplir de bouffe maintenant. Je sais pas si les début de ma vidéo, mais Turkish Airlines sont prêts à nous laisser utiliser d'autres de leur avion au cas où on arriverait à lever plus de nourriture que 60 tonnes. Alors, allons-y comme des bourrins, aidons la Somalie. C'est maintenant ou jamais de jouer Internet, let's go! shirkadda duulimaadka ee Turkish Airlines ayaa durba ka jawaabtay codsigii Jérôme iyadoo ballan qaaday inay diyaarad xamuul ah oo bilaash ah siin doonto wiilkaasi si loogu raro 60 tan oo cunno ah, taas oo la gaarsiin doono dadka gaajadu hayso ee Soomaaliya. waxaa kale oo dawladda Turkigu ay sheegtay inay intaa ku dari doonto shixnado maraakiib ah oo gurmad sida oo iyaguna dhinac socon doona duulimaadkaasi, waxaana maalinta Isniinta ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 27 Maarso ay diyaaradani mucaawinada sida soo caga dhigan doontaa magaalada Muqdisho.